wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland Mire Maxamed oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta kormeer indhayn ku tagay garoonka kubadda cagta almis stadium ee magaalada Burco kaasoo ay ka socoto hawlaha shaqo ee dhigista roogga cagaaran. Wasiir Boos ayaa kormeerkiisani ku kuurgalayay halka ay marayso hawlaha shaqo ee dhigista roogga cagaaran ee ka socota garoonkan almis. ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay isla markaana wasiirka ugu warbixiyay halka ay marayso hawlaha dhigista roogga cagaaran ee garoonka almis stadium. gudoomiyaha shirkadda dhigista roogga cagaaran garoonka almis Engineer Maxamed isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer Kaysa Yuusuf Cilmi xildhibaan Rashiid Faarax oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco. maanta waxaan joognaa garoonkii Togdheer Burco maanta insha Allah shaqadan aanu hayno insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu shaqo wanaagsan qabano. Togdheer waa gobolkaygii waa garoonkaygii jeeniya inaan insha Allah taala aan intii aan u dadaali karay karaamkayga insha Allah aan aad iyo aad ugu dadaalo iyadoo ay garoonkii Burco ay ka socoto shaqadii roog dhigista shirkadaha gobolka Togdheer waxaan iyagana ku buurinay inay qurxin iyo gacan siinta garoonkan Burco ay ka qayb qaataan sidii intii dhameystiran ama qololaha ama qurxinaha ama sijeedka marmarada la dhigayaa ee biyo mareenka waxaan leeyahay waa inaad ka qayb qaadataan idinku qurxinta oo noqdo furay garoonkan roog dhigista mar labaad iyo mar saddexaad baan uga mahadcelinayaa sida ay shaqadu socoto madaxweynaha qaranka Soomaaliland hormuud ka yahay si uu dhalinyarada kor ugu qaadi lahaa budgetka ugu jira miisaaniyadda wasiirka saacad in si dhaqso lagu soo daayo garoonka si uu isu raaco oo dhismihiisana uu garab socdo runtii qaybtan roogga biricda socotay بلاير تاسو runtii noqonaysa inaan qayb dambe gelin garoon taasna insha Allah bismillaah kariim oo dabagalkeedana ku haynaa shaqadan aad bay noogu socotaa waan kaaga mahadcelinayna inta dhiman insha Allah bismillaah kariim waynu ka dabageli doonaa aan joogno garoonkii almis stadium ee Burco oo rooggi la dhigayo qaybihiisa kala dhismuhuna insha Allah bismillaah kariim ay si degdeg ah noogu bilaabmi doonaan oo hormood anaga ka wasaaradahan noogu yahay wasiirku inaanu hawshu kolba halkay marayso aanu indhayn oo aragno shirkadana waxaanu doonaynaa inay hawsha si fiican oo mugli uga shaqeyso oo ay laban laabto. Boos Mire Maxamed wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland ayaa ugu dambeyntii isaguna ka warbixiyay kormeerkiisana ku tagay garoonka kubadda cagta almis. Saakaalka waxaan u soo wada marnay inaanu sii eegno sida uu socdo dhigista roogga garoonka Burco taasoo ahayd ballanqaadyadii madaxweynuhu markii hore galay markii dambeena isaga laftiisu uu bilaabay fidinta si uu yarateen iminkana halka wanaagsan inoo maraysa waxaan filayaa in inoogu dhamaanayso si aad iyo aad u wanaagsan ku boorinaya xildhibaanadan loo xilsaaray dawladda hoose ciyaaraha oo ay biyaha laga sii daayo garoonka meel biyo ka baxaan oo helo degdeg u helo taan roobku iman rooguna uu degdeg nooga dhameystirmo anaga iyo wasaaradda maaliyadda si degdeg loogu soo deyn lahaa inta kale garoonka ugu jirta dhismihiisa si uu mar kaliya isku wada raaco oo inamaduna u helaan meel ku ciyaaraan. Shaakir Cabdi Axmed, Sab TV, Burco.